العافية أنتوا عن خير بالخير خير كوان عيد درينكاga والله aad bay shucuubteedu oo kacsantahay maanta alxamdulillah ma sha Allah oo ka masaajidkuna soo buuxsamay si fiican oo naloo baaray مخلصين له دين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه وعيد يقول رئيسي فريمة كبحسن عيد هالكن عن كذا هضانو وحكم إذا نبتقلية ده يا كيني وأوروبا كيني مدولة ده كينتي مفدرال با كيني وحومي شنو نبتقلية ما هيصنع هداية تايم ها أنا لا شنو هذا تاي مايا سأكون اللي أنك شقين كوحي وناجي سكر لا ما أمني هالنقطة أما وناج دين تحكي ساكسر هالنقطة أما هرمر هالنقطة عد جارة شخص جارة إن الله أستيانا ما فينا مو وناك سنة ويا عد جاري مكينين عد جارة إلا قلع عرنا ما فينا وهميمة واحد متشرم سمتشو هدي وجرو وناج إنه هيصنو وناج إنه هيصنو واشقاق تيمد دلال فربضان بس إله بحيه كصوت عصا سواء وناكسن واي سواء وناكسن عيد وناكسن سودو جنرال ياد مناسبة نضو كفاية سنة يا الله لله لما أنا وضع مسلمين تاو حن لي عيد مبارك لما جيجا الصومالية دو حن لي عيد مبارك كل عام وأنتم بخير حرب عينا دول استاجوا وحن إسلاها ولا جبت بديه هي وحن إسلاها ضوبة هاي وحاضر هرت أمن النقط iyo dadkan badqabkooda ay noqoto wax kasta oo loo sameyn karo waa lagu khasban yahay in la sameeyo olaha iyo tooriyaha iyo hub wixii ah iyo waxyaabaha ku jiray hadalkii laamaha amniga qaar doob ay ahaayeen qaar ay ka mid ahaayeen oo kiyaala iyo maxaan ku idhaa waad malaga safarto maya ana sideeda uga imaaday adoo waad xidhanta iyo sidoo kale ookiyaalaha iyo moobilka labada waxaan isleeyahay waa laga badbadiyay kuwa dhihi doona hadii lacala ay dhacdo ilaahay inaguma keeno haduu shil dhaco oo ay qarax dhaco maanta kuwa dhihi doona dawlad ma haysano amni lama sugayo maxaan ku idhaa waa ciidla dawladii ma jirto waa la rogmaday hoogay oo bacay kuwii dhihi lahaa yaa maanta waxay leeyihiin qaraxad baa laga reebay saaka waxaan leeyahay ciid wanaagsan horta dhammaan asxaabtii aan waqtiga gaarka isla qaadan jiray 15 sano u dambeeyay reer Yurub inta kadib dhammaan ummadda Soomaaliyeed ummadda muslimiinta meel kasta joogaan bay ciid mubaarak baan leeyahay كل صاحب غالية ويجوجان سويسرلاند وحولي يعني هذا أمريكا بدنا بدن وحولي هذه غالية ويجوجان تذكر يوروب كور إذا كاد الله عيد مبارك تذكر يوروب أذكر الغد ما قال نحكي الله وعينه شرف يا كرام بسم الله الرحمن الرحيم صباح ونكسن عيد مبارك ملك استوى جوجتان كل عام وأنتم بخير وحن كسوغان هاي مقالة جبتية عاصمة الديجان كالصومالية وأصبح ذيك بعد عيد الفطر bisha shawaal koodeeda waxaan jecelahay barnaamijkan kooban inaan ku eegno ciidda iyo waliba dadka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada caasimadda ah ee Jigjiga sida ay ciidaasi u oogeen ama ay uga soo qayb galeen Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo muslimiinta dunida oo dhan dhammaantood waxaan leeyahay ciid mubaarak kuwada ciid caafimaad wixii fariimo ahaa muhiimka ahaa Sheekh Junayd yaa soo jeediyay inkastoo maanta waa ciido waa dadka hadli karaay malaha sheekhu saaka uu tirsaday ay qaar oran doonaan wixii la qumanaa way noo sheegay waxaan kaliya raacinayaa wanaaga soo kordha in lagu mashquulo yaa keenay yaa sababay waxyaalaha ducfiga ee dadka aan wanaag jecelayn bay ka mid tahay marka wixii wanaagay soo kordha ama amni ha noqdo ama wanaag diinta xaqiisa ka soo ha noqdo ama horumar ha noqdo cid gaara shakhsi gaara in loo asteeyana ma fiicna ma wanaagsana waayo cid gaari ma keenin cid gaara in lagala cararana ma fiicna waxa muhiim ah waxaas ma jiraan mise ma jiro haddii uu jiro oo wanaag aynu haysanno dee wanaag aan haysanno waa shaqo ku timid dadaal fara badan oo bulshada iyo maamulada iyo dawladda federaalka iyo cid walba ay keentay wanaagga uu xooga aan saarno waayo waxaan saaw leeyahay waxaad moodaa ajendayaal aan
ma dheelayso dadka waxa u tiray mararka qaarkood dadka in lagu dhex tuuro waa ciidii ugu horeysay ee fariimo ka baxsan ciidda halkan aan kaga hadlaano waxaa ka mid ah nabadgelyada yaa keenay ma urur baa keenay ma dowladdaa keentay ma federaal baa keenay waxaa ugu muhiimsan nabadgelyo ma haysanaa haddii ay tahay haa aan ilaashanno hadday tahay maya saan ku heli aan ka shaqayno wixii wanaagay soo kordhay xagga diinta dabcan su'aalo culus jawaab simple oo fudud looma raadiyo adduunka wax walba haddii la sii baadho gacmo fara badan oo suurtogeliya baa la helayaa waxaan soo qaadanayaa oo maanta ay khusaysaa arrinta diinta wanaagga diinta ee dalka ka yimid kow halganka muslimiinta dalka ayaa sabab u ah oo u halgamay dadka muslimiinta ah oo intaasoo sannadood xuquuqooda in la aqoonsado ka shaqaynayey oo intaasoo qof maxaabiis xabsi u galeen oo kuwii ugu dambeeyay aad ogtihiin codkanagii hala maqlo ustaad abubakar iyo tiim ay lahaayeen oo 10 sano ka hor xabsiya ugu jiray baa jira marka dad fara badan oo kuwa wajiga ka muuqda ay soo taagan aan ahayn ayaa wanaagga soo kordha qiimo muxuu ku bixiyay badankeeda waxaase aan muran ku jirin inayna suurto gasheen sida maanta diintu ay tahay haddii ayna jiri lahayn maskax furnaanta ra'iisul wasaaraha dalka ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed oo ay tahay inaan u mahadnaqno sababtoo ah wuxuu suurto geliyay isbeddel laga yaabo inuu xilli dheer qaadan lahaa inuu yimaado oo xagga dawladda inay aqbasho sinaanta diimaha ayaa muddo kooban isagu suurto geliyay waxaa tusaale u ah in habeenkii aynu ku tuumaynay Laylatul Qadarka telefishinkii qaranka laga soo deynayay astaan ka ballaaran sinaanta diimaha oo taas ka weynaya jirta ma malaynayo waxaa ka mid ah in inagu tobankii dambe taraawiixdii salaada la soo deynayo oo telefishinkii shacabkii looga soo bandhigayo waxyaalo yar oo sahlan oo fudud ma aha isbeddelkaasi waxaa taasi ay muujinaysaa xuquuqo kale oo fara badan inaga maqanina way jiraan oo muslimiin ahaan aan u baahannahay laakiin meel aad u wanaagsan oo maanta aynaan lahayn muslimiinta maxaa ashcaartooda iyo inay ismuujiyaan loo diidan yahay ayaan maraynaa tartankii quraanka telefishinka laga soo deynaya qaranka garoomadii iyo barxadihii ballaadhnaa ee caasimadda iyo meel walba iyo afurwadeed lagu qabanaya waxa inayna nala fududaanin oo dad fara badan oo maaragtay arrintaa u halgamay jiraan inaan aamino ayaan u baahannahay aad iyo aadaan u bogaadnaya isbeddelka dhankaa ka yimid ee heer dal iyo heer deegaan bayna soo gaadhay si uu u sii socdo oo insha allah haddii aan leeyahay hadafka aan leenahay mujtamac islaam ah oo wanaagsan inaan abuurno oo maaragtay kaba sarreeya waxyaalaha maaragtay hadda aynu isku haysanno ee siyaasadda iyo waxaasaba inaan abuurno mujtamac noocaas ah qof walba oo islaamka jecelina uu jecel yahay inaan uma abuurmo si ay nagu suurto gasho waa inaan kaalinteenna ka ciyaarnaa dhan walba dhanka amniga dhanka baraarujinta dhanka maaragtay midnimada shacabka intoo dhan inaan kaalinteenna ka ciyaarno idinkoo dardaarmayaa aad iyo aad waad mahadsantihiin waxaa kale oo aan aad u bogaadinayaa dhammaan dadkii samafalayaasha ahaa ee maaragtay bisha Ramadaan khayrka ma garanaysaa sameynayay ee caawinayay dadka ee maaragtay dhaqaalaha faraha badan ururinayay dhammaantood ee ka jawaabay baaqii Alle ee ka horreeyay kii dawladda iyo kii annaguna aan ku darnay dambe labadaba dadkii intay ka jawaabeen shacabka caawinaya masaakiinta quudinayay waxaan leenahay maantana waa maalinkii ciidda ka sii farxiya shacabkii oo nin walba tabartiisa ciidii uu maartay ciidin kara ciisiyo بريتوله هدي الله يدانا باهيدي شل عن قبل إنه يهربان ويتعلقون مركب مساكينته ما دام دينتو نفرع سوينا نوصو أجنو برامج جدا رمضان تلسكوب برامجية كوالله ميدا حلية ذا كلام أنا وبهنا جارهان مالمه جماعه كليه إنا دقن كني جنو وهاي كم من نقول إسا أبوريتا قيم عصب وبرشة إسلامية لو قرتك كم من نقول إسا أرمها صورنا هذا ونفوتي هذا بقول فرحسن هاي إلهي مارت وحلا إنك دائما إذا كبارت نولشة يهرمرك يدقالها أنا إلهي مارت هينو سفتقليو وحن رجينا يا أخوانا إن نجاري دونه وحنو بهنا إن نبنما موجينو إن نشقينو إن نسعفينو أنتم قاعد بلارن لموجيو أو أفكارها اللي تقول دي هاي أين كينين إن أسكب البرنا وحنا يسنو وأدنى سنتي المركلة لما المسلمين تا عيد ونكسن كود عيد عافمات قد وأدنى سنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين كان كيف يقول صبيري جنرال أيوب مركز رأت كابتن بعد يقول بتشرنا
sida ilaahay bixiyay ka socotaasoo wax wanaagsan way subax wanaagsan ciid wanaagsan soo dhow general yaad munaasabadan oo ka faa'iideysanaya yaad la hadlila dhammaan ummadda muslimiinta waxaan leeyahay ciid mubaarak dhammaan geyiga Soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr intaasaan leeyahay dhammaan ummadda oo salaamaya qof gooni salaamay kamaan gaar shakhsiyan way jijiyaad ku ciidaysaa ma ciidii kugu horeysa jijiya ku ciidaa mise mar hore ku ciidaa ciidii ugu horeysa jijiya ku ciida ilaahay baa mahad iska leh horay ciidii kuma dhalan in badan ma joogin hadda ka hor baan 2006 maraymi iyadoo yara ilaahay baa mahad iska leh maalin farxad weyn waa ciid الفطري bil Ramadaan soddon soo afxirnayn ilaahay nabad buu nagu gaarsiiyay dhammaan ummadda waxaan ugu baaqayaa jigjiga oo aan nasiib u yeeshay sanadkan ku ciido ilaahay amniga iyo xasiloonida iyo horumarka haysta Allah u siyaadiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeedna Allah inta kala siiyo hal iyo laba intii aad joogtay ayuu jigjiga maxad ku aragtay geey Soomaali degto inta marayay waa meesha waa jinsiga Soomaaliga meesha ilaahay horumarka fiicnayd ما waxaan filayn baan iga muuqdayo sawir noocaan kama haysan laakiin markaan imid oo aan magaaladan iyo investmentiga galay iyo ra'yigan ka haystay aad baan u kala duwanaa jidadkeeda kaliya markaan fiiriyay magaalada marka Soomaaliya hada magaalada ugu jidadka horumarsan waxa lagu tilmaamaa Garowe hatta saddex jibaar ma gaari kardhaa oo tanaasi horumarsan isma dhawa marka magaaladan iyo si uu dhisan tahay sawirkan ka haystay xilli ugu dambeysay marka waxa isku qiimeysay waasaas inna baa sawirkan kama haysan marka geey Soomaaliyeed ama jinsiga Soomaaliga marka la yiraahdo shanta Soomaaliyeed baan dhaho Djibouti baa ay dhimanaan wali ma tagaan Djibouti laakiin magaalo la mid ah ama say u horumarsan tahay ama u baaqaysan tahay anu ma arag indhaha ma saari marka Allah u siyaadiyo Allah umada kalena Allah gaarsiiyo amiin Allah u siyaadiyo ciid wanaagsan ma kuleenahay ayub aad baa maasanta walaal way ciid wanaagsan ayaan idin leenahay mar kale waxaan ku sugannahay garoonka kubadda cagta ama stadiumka magaalada Jigjiga ee caasimadda deegaanka Soomaalida halkan ayaa salaada ciidda lagu oogayaa oo dadka magaalada caasimadda ah Jigjiga ku noolintooda ugu badan halkan ayay isugu soo baxeen safaf dhaadheer ayaa loo galayaa tukashada salaada oo mar dhow la bilaabi doona dirabi qadaro waxaan jeclahay saaxiibka guuleed inaan kelmad iyo labo ciidda siiyo guuleed soo dhawow markii ugu horeysay Jigjiga miyaa aad ku ciidaysay mise marar kale ku ciid aad baad mahadsantahay saaxiibka Nuurow Jigjiga oo aan ku ciido waqti aad u dheer dhowr iyo 10 sano yaa igu dambeysay isla garoonkan yaana ku ciidi jiray waqtiga dheer isbedel badan oo dhinacyo badan haday dhan nololeed noqoto haday dhinac horumar noqoto hadii dhinac amni ay noqoto ee Jigjiga maanta ku suntanta Jigjiga waa boqorad kamid ah boqoradaha geeska Afrika saak ugu nabdoon waxaan ugu horeyn rabaa inaan horta uga faa'iideysto maalinta ciidda oo aan dadka Soomaaliyeed guud ahaantii ummadda islaamkaaba aan ugu hambaliyeeyo maalinta ciidda hambaliyadaas iyo salaantaas kadib xalay ilaa iyo gelinkii dambe ee shalay waxa aad loo hadalhayay laamaha amniga ee deegaanka Soomaalida hadal ka soo baxay booliska soo baxay waxaan rabaa bal inaynu u sawirro dadka hadalkaas xalay dhinacyo badan baa loo kala jiijiiday inaynu u sawirro jawiga siduu yahay Jigjiga iyo qaabka looga ciidayo runtii waad arkaysaa khalqi aad u fara badan iyo hadda garoonka ku qulqulaya haafna wuuba sii buuxayba in uu intuu buuxsamo meelo kale loo leexiyo yaa suuragala daqiiqadaha soo socota dad aad u fara badan baa isugu soo baxay oo dhammaantood fuliyey amarradii ka soo baxay laamaha amniga dad baa suurad xumeeyey waxaa la yidhi يعني waa laga badbadiyay waxaan rabaa inaan dul istaago waxaan isleeyahay waa laga badbadiyay iyo waxaan isleeyahay dawbay ahayd wuxuu haday horta amni noqoto iyo dadkan badqabkooda ay noqoto wax kasta oo loo sameyn karo waa lagu khasban yahay in la sameeyo ulaha iyo tooriyaha iyo hub wixii ah iyo waxyaabaha ku jiray hadalkii laamaha amniga qaar dawbay ahaayeen qaar ay ka mid ahaayeen oo kiyaala iyo maxaan ku ilaahay
maya anaa sideeda uga imaada adugu waad xidhan tahay iyo sidoo kale ookiyaalaha iyo moobeelka labadaa waxaan isleeyahay waa laga badbadiyey laakiin inta kale in dhaliilo intaa la eg laga keeno iyadoo amnigii dadka la sugayo waxay ahayd nooc yar mucaaradnimo waxyaabaha aad laysu weydiinaya waxaa ka mid ahaa in hay'adaha amnigu ay yidhahdaan ama booliisku ay soo saaraan war odhanaya muraayad lalama iman karo saacad lalama iman karo maxaa la dhihi jiray qaraxad lalama iman karo cidiyajar lalama iman karo wax kastoo bir ay ku dhex jirto lalama iman karo dadku waxay leeyihiin waxaas waa barifisigii bulshadu ay iska lahayd maaha wax amni iyo khuseeya saacadda wiilku uu ku xaragoonayo ama gabadhu ku xaragoonayso iyo ukuyaalaha ay suuq ka soo iibsatay rabtay inay ku ciiddo waxaa la leeyahay shacabka waa laga badbadiyey soo kuma muuqato taas runtii waa aniga ku idhiba waxna waa laga badbadiyey waxna doobay ahaayeen laakiin at the same time kuwa dhihi doona haddii lacalla ay dhacdo ilaahay inaguma keeno hadduu shil dhaco oo ay qarax dhaco maanta kuwa dhihi doona dawlad ma haysanno amni lama sugayo maxaan ku idhaahdaa waa ciidla dawladi ma jirto waa la rogmaday hoogayoo ba'aya kuwii dhihi lahaa yaa maanta waxay leeyihiin qaraxad baa layga reebay horta qaraxadda haddii amnigaagii ku jiro toorida haddii amnigaagii ku jirto in adugu ku toosnaato waxba kuuma dhibayso laakiin awkiyaalaha odayga shaybka ee looba qorayba uu ku socon lahaa waa laga badbadiyey waxaanan isleeyahay dadka qaar oo xidhan waad arki kartaa waana kuwa duruuftu ay u saamaxday sidoo kale telefoonnada iyo qalabka wax lagu duubo waxay ka mid ahaayeen waxyaabaha mamnuuca waa ka innagu waan wadannaa sababtuna wax kale ma ah waa inay daruuri tahay oo innaga laynooga maarmi waayey inaan wixii samaynayno awkiyaalaha odayga loo daayey waa inuu daruuri u yahay oo uusan waxba arkaynin barnaamijka ugu dheer aad baa mahadsantahay guuleedow dadkana waan la hadli doonaa runtii si fiican baad u dhigtay anigu kolley ukuyaalahayga waa wataa garoonkaana joogaa waxaa weeye dadka saacaddiina waa wataa mikrofoonkaygina waa wataa kaamaradiina waa wadannaa marka waxaan leenahay ciid wanaagsan dabcan dadku dhaliilo kala duwan ayay amarkii booliska ay duldhigeen laakiin waxaad moodaa shacabku sida ay ugu hoggaansameen ay ugu soo qulqulayaan garoonka iyo sida habsamida leh ee wadooyinka dhaadheer ay u soo marayaan iyaga iyo booliskuna isu dhex socdaan waa si aad u qurux badan ciid wanaagsan ayaan leenahay meel kastoo joogtaan walaalkay baan jeclahay gaawe war waa ninkii gaawe waan jeclahay inaan laba kelimo siiyo oo ciidda markaasi uu kula hadlo bulshadiisa gaawe soo dhawow waa markii ugu horreysaan is aragno baraha bulshadeennu iska naqaanay soo dhawow nuur iyo walaalkay guuleed aad iyo aad baan niin salaamayaa salaan kadib ciid wanaagsan dhammaan muslimiinta caalamka gaar ahaan ummadda dowlad deegaanka Soomaalida waxaan leeyahay ciid wanaagsan farxadda ciidda nabad aan ku wada ciidno haddaan soo laabto barnaamijkeenan runtii nabaddu inaga dani noo tahay dhammaan muslimiinta iyo ciidda laftigeedaba in aan nabad ku ciidno maadaama aynu nabad ku soo dhammaysanay soonkii barakaysnaa inaan maantana ciidda aan isugu imanayno aan ku kulannay nabad si nabada loo ilaaliyo oo kiyaalaad tidhiye in macal moobilka laga yimaado innagay dani noo tahay muqdisho waad ogtihiin waxyaabaha ka jira muqdisho waxaad ogtihiin saddex ruux intay isu timaado inaynan nabad ku wada ciidi karin laakiin maanta ummaddii reer jigjiga maanta hal ruux halkaa kama hadhin marka sidaa darteed haddii lagu yidhaahdo taleefonka meel dhigo oo kiyaalaha meel dhigo waa wax sharci ah anigu waxaan leeyahay aad iyo aad bay wanaag u tahay adima ku saamaysay shakhsiyan haa way saamaysay oo kiyaalahayga waan dhigay moobilkaygii waan dhigay sidaa darteed waxaan leeyahay waa in loo hoggaansamo cid aan u hoggaansamayn maanta ma jirto cid walba bulshada dhammaan teed way ka siman tahay marka waxaan leenahay farxad nugula ciida walaalayaashay nuur iyo guuleed aad baa u mahadsan tahay waxaan jeclahay inaan dadkana hal kelimo ila soo saaraa dadkana inaan hal kelimo haye ciid wanaagsan adeer ciid wanaagsan xal hor waa la fiican wallahi haye aad la fiican hor ciida way fiican tahay wallahi haye boqolkiiba wadada saad ku soo marteen nabadgeliyo wax walba waan dhignay haye aad la fiican amarkii waa u hoggaansanay haye khayran aad baa u mahadsan tahay haye yaa hambalyo diraya wax hambalyo diraya ma jira haye kaale adaa hambalyo diraya way ciid wanaagsan baan kulahay soo dhawow saad u aragtaa shucuurtaada ciidan alxamdulilah rabbil caalamiin waa aad u fiican maasha Allah waan faraxsanahay ka waran saa wadada ku soo marteen iyo jid aad iyo aad loo ilaaliyay maxamnigiga askarta iyo nidaamkaba aad baa mahadsan tahay shukran bisla cumar oo aad wada garanaysaan baraha bulshadana si weyn looga yaqaano bisle يوروبان كوغا لكن جيجيغا isku aragnay soo dhaw ciid wanaagsan bismillaahir rahmaanir rahiim ciid mubaarak
kulli dhammaan ummadda Soomaaliyeed ama ummadda muslimiin meel kasta ay joogaan baan salaamayaa ciid mubaarak baan leeyahay maanta horta waa 15 sano kadib waa maalinkii koobaad oo dad muslimiin ama Soomaali inta leeg aan la ciidayo maanta waliba dareenkayga hadana caasimadeedii Jigjiga si gaar ah aad baan ugu faraxsanahay ما شاء الله waxaan leeyahay ciid mubaarak meel kasta isla 15 sanaad ka maqnayd magaaladan oo aad qurbaan 15 sano ma aanan soo caga dhiganin 15 sano 15 sano eedaan kor baxaya iyo waxa weeyaan qasiido kor loo qaadayo midna ma maqal way marka 15 sano kadib in aad Jigjiga ku soonto oo aad ku ciido maxay kaaga dhigantay farxad badan waa tan u imidba waxa yaalahan u imid ayaa waxa weeyaan muhiimadda waxa koobaad waxay ahayd diinta sida imka salaadii iyo ciidii iyo waxa weeyaan maanta cibaadooyinkii badnaa oo wadankeena aad ugu badan taas ayaan horta muhiimadda koobaad aan ugu soo noqday ahayd oo faraha u soo dhigan waxa weeyaan walaahaygi aan soo gabagabeeyay marka waxaan leeyahay intan iyo in ka badanba wayna wada ciidi doonaa intii ka tagtayna xasha lillah allah inuu dib dhaafo saashu dambaysa bisle baraha bulshada aad baa laga yaqaanay dad badan baa siyaabo kala duwan sanadihii ugu dambeeyay ku arkay saaka yaad ciid wanaagsan leedahay saaka waxaan leeyahay ciid wanaagsan horta dhammaan asxaabtii aan waqtiga gaarka isla qaadan jiray 15 sano u dambeeyay reer Yurub inta kadib dhammaan ummadda Soomaaliyeed ummadda muslimiinta meel kasta joogaan bay ciid mubaarak baan leeyahay kulli saaxiibo qaali ah way joogaan Switzerland waxa leeyahay yiraahdo America wadana badan waxa weeyaan aad ugu qaali ah way joogaan dadka Yurub ka war idinka idin leeyahay ciid mubaarak dadka Yurub aad kala qaad magaalka dhinac kale loo weecinay sharaf iyo karaamo iyo istileena dhawe saday bisla Umar ayuu ahaa waxaan jeclahay hadana bal inaan kelimadiisa ciid aan wax yar aan weydiiyo General Ayub afka kullu caam antum bilkhayr dhammaan ummadda Soomaaliyeed qaasatan deegaanka aad baan salaamaya meel kasta joogan ciid mubaarak kullu caam antum bilkhayr baan lahay muslimiinta daafaca caalamka meel bay joogaan kullu caam antum bilkhayr farxad ku ciida meel kasta joogtaan dareenkiina iyo maxaan ku dhahdaa dareenka islaamnimada iyo quwadda maalinta ciida farxadeeda meel kasta joogtaan mujee aad baan salaamaya telefishin aad ma santaadeen adeer السلام عليكم عيد ونكسر عيد مبارك مع عيدين هي كورن درينكاga maanta درينكاga maanta oo shucuurta islaamka maadaama 30 cashar soo soomana 30 cashar soo soomana maanta waxa ciidii muslimiinta farxadii weynada ciid fidri deegaankeena wadada kasta soo loogu ciiday roobkiina waa ka diyaar yahay afqaysi keenay marka aad baan u faraxsanahay runtii ka waran wadada saa ku soo marteen iyo amniga ka war amniga aad buu fiicay runtii si fiican buu loo ilaalinayaa dhibaatay tacaddigii hore ma jiro si toos ah muxuu ahaa dadka dumarada leegaya qofka si dhalinyaro la tababaro sharaf la ee baarisa si sharaf la ku soo maray runtii waxaan sheegay wax dhibaato ma ku qabteen wadada hawo fadhiin wax jawaab ma jiro hadda ka hor dawada jiraysa way hadda maanta ma ka hadlay maanta si fiican ku soo maray wax dhibaato jiro sharaf ku soo maray ما شاء الله عيد ونكسر هذا عيد مبارك سوق سلام يا والله السود العافيه ولا الوندو هاي الحمد لله nabadgelyada qabna ما شاء الله كورن dareenkaaga maanta dhamaan ummadda muslimiinta aan halkan ka salaamay ogana dabankayga alxamdulillah ma soo qiyaasi karay waxa aan u mahad celinayaa ilaaha ballaaran nagu simay inaan nabad ku ciidno ma sha Allah ya marka alxamdulillah wallahi yaad hambal yeelahay ama ciidda salaamaysa dhamaan intay garanaysa magacayga muuqayga iyo maamusteeda baa taqaan halka bad ka sharfatin waa salaamaya sawaye aad baa maasada عيد العافية أنت عن خير عيد درينكاga والله aad shacabteedu oo kacsantay maanta alxamdulillah ma sha Allah oo ka masaajidkuna soo buuxsamay si fiican oo nala baaray oo ka ilaahay alxamdulillah marka si nabadgelyo gaar ku soo gashay aad weyn oo ka ciidii hore aad bay uga fududahay kana silantahay ma sha Allah oo ka aad baa maasantahay haye ka waran dareenkaaga ciid mubaarak haye fiiras ka fiicanay saa wadada ku soo martay ya wadada wallahi silac baan ku soo marnay haye wadada wallahi waa jam ma jam baad idin dhibay mise dhinaca amniga mi wallahi jam baan dhibay wadada wallahi waa iska jam dadku ma jam ka dhigay dadku ma jam ka dhigay sidoo kale waa caadi joog wax kale oo idin dhawaamayda arag mi ciid mubaarak baan ilaahay ciid wanaagsan